asxaabteeda alaabtan quruxda badan waa idiin hayaa. Qofka u baahan ha igala soo xiriiro nambarka shaashada ku qoran aa ujeedaan. Alaab ku qanciso oo tayo leh insha Allah gurigaagana lagu keenayo, delivery-gana uu free yahay ayaan idiin heenaa. Kusoo dhawaada mar kale Guri Bile Training Company oo idiin keentay alaabtan quruxda badan. hablaha dunidan dhex jooga adaa dhool dahab u muuqsan dhabtii waxaad tahay hormuudka dhammaan ku daydan faceedu dhamays baad tahay nasraay dhaliil maba lihid xumaan dhigaabadu tahay haldoor dhamays baad tahay nasraay dhaliil maba lihid xumaan dhigaabadu tahay haldoor Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. asxaabteeda qaaliga aa jeclaha waa idin salaamay meel walba aad dunida daafeeda ka joogtaan. waa mar kale iyo walaashin Nasra Abtidoon oo idiin wada muuqaal kale oo cusub. ugu horeyn asxaabteeda aan jecla waxaa idinkaga mahadcelinayaa sida quruxda badan aa mar walba iila socotaan, iigu soo dirtaan fariimihiina ama komentiyadiina isugu jira ducada iyo dhiirigelinta. aada u mahadsantihiin meel walba joogtaan. waxaan idin leeyahay farxad iyo caafimaad ku noolaada insha Allah. asxaabteeda qaaliga ee maanta waxaa idin wadaa quraac yar oo aad u qurux badan, aadna u macaan maasha Allah. runtii aadna way u fududahay. waxaa ku dhahay borotiin iyo nafaqo iyo wax walbana waa isugu jirtaa, ma fahanteen. alaabtan yarta hadda isku cuntid ama ciyaalka u sameysid waxaa maasha Allah cunto isku dheeli tirana haysataa quraacdaada. quraac keliyana maaha, cashana waa ka dhigan kartaa. soo waa ogahay waa isweydiinaysaan maxaa laga sameeyey biize u egtahay horta. insha Allah way la arki doonta waxa aa ka sameeyey. daawasho wanaagsan. bismillah asxaabteeda marka ugu horeyso meeshan waxaan soo saartay digsi, kadib waxaa kusoo shubay wax yar oo saliid ah. waxaa soo jarjartay hal xabo oo basal ah oo ujeediin si yaryar usoo jarjaray. basal oo waxaa waay gaduud, hal xabo oo si yariis ah usoo jarjaray. kadib waxaa rabaa basasha inaa wax yar shiilo sidaad ujeedaanba. basasha cabaar yar sugaa way iisoo gaduudatay hadda ujeediin wax yar aa shiilay aa iraahdo. kadib waxaa rabaa inaa ku daro wax yar waa carfis ah. waxaa ku dhahan maasha Allah quraacdan waxaa ku dhahe waxaa lahaa kaaliska arag waxaa ku darsanaa deertaan qaada hafkeed oo maraqdiyaa khudaarta ka samaysan, qaada hafkeed oo barbarooni shiidan iyo qaada hafkeed oo xawaaj kaari ah. kulli haaf le waa qaada buuxda ma aha, haaf waaye, ma fahanteen. wax yar waaye yacni ma la rabo inaa ka badisid bahaaraadka ama isbeysiska. soo basasha iyo markaa isku balaaqay intaan hadda waxaa kusoo darsanayaa 2 xabo oo baradho ah laakiin si khafiif usoo jarjaray. waa idin tusaa mujeediin si khafiif u jarjaran tahay, yacni zaaid khafiif uga dhigay. waa taasaa khafiif waaye, butac ma ka dhigin yacni. iyo waxaa kaloo kusoo darayaa 2 xabo karooto ah. karooto waa iyadana aa soo hoolay. markii aa soo hooshid iyo markaa caadi u jarjartid karootada waxay khafiif tahay marka aa soo hooshid. soo waa soo hoolay karootadana oo jeedin soo maaha. waa taasaa way hoolan tahay. markaa wax biyo marabi inaa ku daro. waxaa rabaa huur bes inay ku bislaadaan. karootada iyo baradhadaba inay huurka ku bislaadaan aa rabaa. dabka u gaabinayaa, waa daboolayaa. adiga wuxuu i daboolnaanaysaa 10 daqiiqo camal meelahaas. shaqooyinkii kale iska sii qabsanaa, waxyaabihii kale iska diyaarsanaa, sii jarjarnaa. waxaa ku dhahay maasha Allah iyadoo bislaata usoo noqon doonaa. daboolkeeda dhakab ku siinee iyada isku huureysa, ma fahanteen. wax biyo ma ku taabanaysa laakiin waa inaad dabka u gaabisid. asxaabteeda oo isku soo noqonay 10 daqiiqo kadib waa kana karootadii, baradhadii, basashii wixii dhan waa isku bislaadeen. baradhada inay bisasha waxaa ku tijaabinaysaa qaadada mujeediin. jeeka markaa kusii hore ka kala jabaysaa hore, yacni marka way bisashaa micnaheeda. koley baradho biseel midiin tilmaamaya waa fahmaysaani inay baradhada bislaatay. hadda waa kaasaa. hadda maxaa ku darsanaynaa bal ila arka. hal xabo barbarooni oo yariis ah kasoo dhigay ayaa ku daray. kadibna waa ka dejinaya yacni ama dabka ka daminaya. wax kale uma dhinno ama biseel kale uma dhinno. qaybta kale haddana bilaabeynaa.
meeshaan waxaan ku haystaa weelkii aan ku qasi lahaa ukunta 4 xabo ukuna meeshaan ku haystaa sa aragtaanba xabad walba waa soo jebinaa oo kusoo shubaa weelka kadib waa qaseynaa 4 xabo ukunta sida ujeedaanba waxaa kaloo ku darayaa marka ukunta saas usoo qaso wax yar oo filfil mujeedin iyo cusbo wax yar iyadana maadaama haday maraqdiga khudaarta ka samaysan baradhada ku daray cusbada wax yar ka dhigay wax yar hada ina badisid ma laga rabo filfish yareed iyo cusbada yareed ku qasaya waxaa ku soo daraya kabsar caleen soo jarjaray ayaa ku daraya ukunti ujeedin ma si yariis soo jaray kabsar caleentan hadii aadan rabin waa iska dhaafi kartaa qasab ma ina kabsarta isticmaashid filfish xitaa iska dhaafi kartaa ma fahanteen waxaa kaloo kusoo daraya hadirtaan khudaarta diyaarsaneed baradhadii barbarooni basashii karootadii oo bislaadeen oo haday soo diyaariyay ayaa kusoo daraya ukuntii oo meeshaan igu diyaarsan kadibna waxaa ku daraya mozzarella cheese ama farmaajada oo loo isticmaalo pizza iyo waxyaabahaas lagu darsado cheese-kaas ayaa kusoo daraya xoogaa yar adiga tumin camal waayo ruuc ma dhamo tumin waa ruuc halfkiis waa ma fahanteen soo intaana isku walaaqa cheese-ka hadaan haysan waa ka maarmi kartaa intaan kale ka sameyn kartaa marka asxaabteyda hadda ukunti ayaa kusoo shubaya diyaarsaneed iyo khudaartii digsiga inta ukunta ku shubin wax yar saliid ayaa ku shubay marka yar kululaatan ukunti ayaa kusoo gadiyay marka hadda waxaa la rabaa inaad dabka u gaabisid kadibna aad dabooshid 10 daqiiqo ayadoo dabka u gaaban yahay daboolnaanaysa markay bislaato kadib isku soo noqon doonaa insha Allah ee hoos dhan biseel ka noqoto hadda waa daboolaya sidaad aragtaanba waa isku soo noqonaynaa marka insha Allah asxaabay waatana ukunti 10 daqiiqo daboolneed hadda waxaa rabaa marka inaan hoos ka fiiriyo wax yar qaadada kor ugu qaadaya si aan u fiiriyo hoos inay ka gaduudatay in kale waa ka fiiriyo hoos gaduuday ka tahay saxankaana isticmaala sasa ugu gadinaa si tartiib inay ka kala jabinaa la rabaa kadibna digsiga ku celinaa si qaybta kore hadana ay u gaduudato maadaama hadda qaybta hoose bas ay gaduudatay uu dabka gaarin qaybta kore hadda qaybta kore gaduudinayna markii inoo gaduudato kadib hadana isku soo noqonayna insha Allah hadda waxaa daboolayaa 5 daqiiqo waqti badan ma u baahno saxaabay 5 daqiiqo kadib waa kana isku soo noqonaa hadana mar kale ukunti waa kaasa qaybtii kore way ka gaduudatay sidaad aragtaanba ma sha Allah gaduud qurux badan ay noqotay yellow ama jaal isku jiro hadda waa ka soo dajiyay waxaa suga inta iiga qaboweyso wax yar markay ii qabowdo kadibna waa kala jarayaa saaribtida u kala jari kartaa hadaa rabtid 4 cad ka dhig hadaa rabtid 5 ama 6 wixii aad jeceshahay ka dhig sidaas aan u kala jarayaa kulay ujeedaanba wili way kulushahay ma sha Allah sidaas quruxda badan ay soo baxday quraacdeeni aad ku fududeed oo quruxda badneed waxaa ku dhahay quraac yar oo iska nafaqay waa ma sha Allah ma u baahna rooti iyo canjeero iyo waxaas inaad ku cuntid kaligeed halka jab cuntida ku filan fahanteen yani halkaas jawaab ku dhargeysa ma u baahnid inaa wax kale ku cuntid ama ku darsatid dhaxdan waa kaas ma sha Allah bardadii karootadii waxyaabihii dhan ku jiro qudaartii oo dhan qudaartii idil ku jirto ma fahanteen ma sha Allah ka jab yar soo qaadanay ama bisbaas yar wixii markaas jecesha oo gurigaaga yaala ku cunaysaa waxaa ku dhahay quraac yar oo easy waaye nafaqa badan leh ciyaalka aad ugu fiican ma sha Allah xaajiga kulli naftaada wax walba u runtaa ma fahanteen soo asxaabteyda waxaan rajeynayaa inaad ka wada faa'iideysateen oo na ka hesheen oo tijaabin doontaan insha Allah waxaa idinkaga tagayaa khayr iyo caafimaad iyo nabad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.